madaxda xisbiga wadajir ayaa xafiiska ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ku qabtay munaasabad loogu duceynayay 5 askari oo ilaalo ka ahayd guriga xisbiga wadajir ee ku yaala magaalada muqdisho ka oo lagu dilay weerar ka dhacay 17 December 2017 mas'uuliyiinta xisbiga wadajir iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xildhibaano ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadan ducada ah ugu horeyn hogaamiyaha xisbiga wadajir siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku dheeraaday ka hadalka maalintan annaga markii waxaan ugu celcelinaynaa munaasabadda waxay tahay inaan taariikhda laga been sheegin oo bari la dhihin wiilashii halkaan lagu laayay ayagaa dawladda soo weeraray alla inteena waxaa laga yaabaa sanado ka bacdi inaanan joogin waana ogtihiin wixii jasiiro ka dhacay dad ganacsato iyo aqoon-yahan iyo saraakiil inta magaalada xamar si qabiila looga aruuriyey halkaas lagu xasuuqay oo weliba faamil 5 wiil isla dhalata ku jira ay ka mid ahaayeen nin mas-uula maanta inkiraayo oona ka been sheegayo annaga waxaan diidanaa marka in taariikhdii meeshaan ka dhacday laga been sheego marka inay xasuusta dadka ay ku joogto waayo xaflad tan lamid ah ayaa dhowr maalin ka hor magaalada lagu dhigay 13 bishii oo ah dadkii baydhabo lagu xasuuqay waxaa la ii sheegay nimankii xafladda qabanqaabiyey nin ka mid ah inuu xiran yahay oo xabsi la geeyey oo la yidhi maxaad u dhigaysaa xusuustaas iyo maalintaas iyada ah ninkaas magaciisa waa nin wariyaha BBC intiina badan ah ka maqli jirteen waxaa la yiraahdaa Yuusuf Xasan la yiraahdaa waxaan ku baaqaynaa ana ka rabnaa annaga kulleetii wadajir ahaan waa ku baaqaynaa xisbiyada kale meesha jooga iyo dadka kale oo dhanba inaan u galno dadaal in laga sii daayo xabsiga ninkaas oo ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo qaarkood ay ka socdeen waxaa ka mid ahaa xildhibaan Beene waxaana ay ka hadleen wixii dhacay December 2017 hogaamiyaha xisbigan wax loogu geystay ciidamadii halkan joogay xoogga dalka qayb ka ahna ay ku dhinteen mataqaanaa maanta loo joogo xuskeedii labaad inaan mataqaanaa aan dhahno event aad u fiican ma ahayn annaga markan Soomaaliya ka hadlayna waxaan rabnaa sareynta sharciga in aad loo ilaaliyo taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya soo noqday xildhibaan qaran Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa isna dhinaciisa munaasabada ka hadlay waxaana uu sheegay in wixii dhacay uu ka xun yahay sidaas darteedna loo baahan yahay in la garaabo dawladnimada macnaheedu ma ahan in dadka lagu toojar gareeyo in loogu adeego loogu turo loogu naxariisto la isku dumo saas ayaan anagu u haysanaa runtii dhalinyaradii meeshan ka ku la'atay ama lagu dilay waxaan leenahay Allah u naxariisto ilaahay cafiyo damigooda Allah dhaafo intii ay ka dhinteenna Allah uu qalbi qaboojiyo samar iyo iimaan hadda wax kale anaga oo noo furana runtii ma jiraan waxa kaliya annagana la karaa waxay tahay dictatorshipka annaga abuurayna madaxda maalintii qaldan yihiin hal joojiyo yaan la buunbuunin qof aan waxba ahayn oo waxba aan dheereyn maaloodu waxa Sheekh Shariif ayiriya la yiri thumma wallahi waa la bixina aniga waxaan qabaa warkaas waa run nin kasta oo sharci lagu doortay oo sharci darro ku dhaqmo waa la bixina maba ahan in laga gorgortamo ugu dambeyntii munaasabada ayaa sidoo kale qayb ka ahayd saakay in kulan Quraan akhris ah oo loogu duceynayay dadkii ku dhintay weerarkaasi in Ilaahay jannadii naxariis uu ka waraabiyo waxaana kulankaasi uu ka dhacay isla xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho بما نسيتم لقاء يومكم هذا